Emotional damage. Emotional damage. waxaa laga yaabaa marar badan inaad maqashay ama aragtay meelo lagu qorayo ereygan Emotional damage. Emotional damage. Emotional damage. emotional damage waa erey caan ah oo muddooyinkii dambe dadku aad u isticmaalayeen haddaba xaggee ka yimid ereygan asalkiisa yaase laga maqlay muuqaalkan ayaan ku eegi doonaa haddaad ku cusub tahay channelka subscribe saar sidoo kale muuqaalka like saar okay ereygan waxa uu la mid yahay ereyada ma fahmin oo Sharma Boy ka soo yeeray jacayl dhacalgala wax dhaama lawa oo qamar suugaani laga maqlay ereyga Cimaamad Kutuur oo Maxamed Qadar caan ku yahay sida kuwaas loo baabooniyay oo kale ayaa isagana loo baabooniyay Stephen He waa YouTuber u dhashay dalka China waana ninka alifay ereyga emotional damage waa 26 jir waxa uu inta badan soo gudbiyaa muuqaalo fanni ah oo kaga hadlayo qaaradda Aasiya waxa si lama filaan ah afkiisa uga soo baxay ereyga emotional damage xilli uu muuqaal duubayay isma oona lahayn heerkan ayuu gaari doonaa xitaa isagii ayaa la yaab ku noqotay sida loo baabooniyay ereygan mar uu sharaxayay sida uu ereygan ku yimid ayuu yiri emotional damage waa marka ay dhacaan wax la yaab leh una dhacaan si lama filaan ah Yes, he does. Emotional damage. Just so we can laugh at it. What the? Emotional damage. Where's the therapy button? af Soomaali ahaan waxaan ereygan dhihi karnaa jac ayaa ku dhagtay qofkaas ama fashil muuqaalada Soomaalida ee aan dhihi karno waa emotional damage waxa ka mid ah dhiban Cabdiqaadir indhaan dhow Emotional damage. nin uurale mana lii qabo sida waalidkay ugu sheegaa sida lugaha loo kala furo waa aqaantahay sida afkaaga loo kala furo maxaa u baran waasi Emotional damage. shushu hadda waxa lahaa oo ku jeclahay كانتالا ميون سوشي قبل ما يصحتني حاسي دواء تقلبني عقرت عليها Emotional damage. waryaa iniga rag ma tihiin miyaa caloosha inaa kuu buuxin ma waxayse qabtaa Emotional damage. waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan channelka subscribe saar muuqaalkana like saar mahadsanid